dhasho bay yidhaahdaan wuxuu diyaar u yahay inuu wakhtiga ku garan karo oo weliba inta uu yarya u kala sooci karo codadka bini aadamka kala nooca. waxay yidhahdaan codka bini aadamku ku hadlaa waa 150 cod. alfabetiska kala nooca ee bini aadamku kulli luqaad waa 150 bay yidhahdaan. matalan luqada ingiriisi waa 44 cod bay yidhahdaan. ilmaha yari wuxuu u diyaarsan yahay codadkaasoo dhan inuu garan karo oo kala sooci karo. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya marka wamin aayaatihi khalqu samaawaati walard. ilaahay aayaadka waaweyn ee lagu garto waxaa ka mid ah inuu cirka iyo samada iyo dhulkaba abuuray. waxaa kaloo ka midaba ilaahay leeyahay wakhtilaafu alsinatikum, afkiina kala gedisan ee midba uu af ku hadlayo. maanta waxay tilmaamaan 6,000 oo af in ku dhadhow ayaa aadanaha dunida kor saarana ku hadla. waa aaya min aayaat illah. ilaahay markaa wuxuu leeyahay afkiinu siduu u kala gedisan yahay iyo midabadiinu say u kala gedisan yihinba waa aayaat ilaahay lagu garto. ina fii dalika la aayaatin lilcaalimiin baa ilahay yidhi. kuwa aqoonta le bay aayaad ugu sugantahay. masaa'ilkaasaa ilaahay ku tilmaamaya. culamaa ilfalsafa waxay ku tilmaamaan insaanka markay tacriifinayaan qofka bini aadamka ah xayawaan naatiq bay yidhaahdaan ay caaqil. waa xayawaan hadlaya ama wax garanaya. waxay dhahaan garashadu waxay ku xidhan tahay luqadaad taqaanaa intay tahy. inta vocabulary aad garanaysa baad ku fakartaa bay yidhaahdaan. saa daraaddeed waxay ku tilmaamaan bini aadamkuba inuu yahay xayawaan hadlaya. luqadu asliyan waxyaaba badan bay bini aadamku u qabataa. kow, qofka bini aadamka bay yidhahdaan waa madaniyi tabic, waa bulshaawi. waa qof aan keli noolaan karin bini aadamku. walidalik cuquubaadkan bini aadamka ay dowladuhu ku xukumaan waxaa ka mid ah xabsigiisa. xabsigan la ysku xidho. haddaad xabsiga rabshad samayso ama marka horeba crimekaagu nooc gaara uu yahay, xabsi kaloo qofka lagu sii xidha kusii dhex yaala. waa selka, zanzaanaadka. waa infiraadi in keli lagaa dhigo. awalba waad xidhnayd oo nolosha wax lagu ogola ma jirin. laakiin maxaabiis kale haddaad joogta, maxaabiista kale in lagaa sii fogeeyo macnaheed waxa weeyaan waxaad la hadashay inaad weydo, midaad communication la samaysatay inaad weydo. idan waa xabsigiisii. insaanka markaa meelaha ugu adag ee la geeyo waxaa ka mid ah inuu noqdo maxbuus gaar loo xidhay. waayo wuxuu waayayaa bay leeyihin masaladii ahayd inuu bulshaawi yahay, inuu social yahay, inuu cid uu la xidhiidho, la hadlo oo la dhaqmo inuu waayo. afku baa la yidhaahdaa asal ahaan waa waxa uu qofku ku cabiro ama se uu ku sheego afkaantiisa iyo dareenkiisa, hadduu dhib yahay iyo hadduu farxad yahayba. waxaad qiyaastaa qofku markuu afbeelo dhibba qabsata. haddaad abkam noqoto, dadkan dhagaa iyo carabkaba beela, waxaad garan kartaa qofkaasi dareenka uu dareemayo inuu kuu sheegaa dhibta ay ku hayso, inta ay ku qaadanayso inuu kuu sharxi karo. ama waxaad qiyaastaa cid aanad afgaranayn markaad u timaado aad rabto waxi aad dareemaysay inaad sheegato ead waxba sheegan kari weydo. saa awgeed waxay dhahdaan huwiyad waa identity, waa baadi socda oo qofku ama aadanuhu waxay gaar cid waliba u leedahay. waxa dadka lagu kala soco waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah afka iyo diimaha. bini aadamka marka la kala soocayo huwiyada waxa siiya ee bulsho ka dhiga ay bulsha u yeelato dhaqan iyo thaqaafa culture ay leedahay uu jiro waa afka. afku wuxuu kaloo leeyahay qofku tacbiir fanniya, yani waxyaabaha uu caqliga bini aadamku ku raaxaysto inuu sheego. sida awgeed ba waxay yidhahdaan culamaa ilfalaasafa markay ka warramayaan qowminimada nationalismka, nationka la sheegayaa bay yidhaahdaan waxa rasmiga isku xidha waa luqatilum, waa afka hooyo oo ah ilmaha yari waxa uu dareemadiisa iyo afkiisa iyo wixiisa uu ku cabiri karo. waa
waxa ilaaliya bulshadu hiddaha iyo dhaqanka ay leedahay. aqoonyahan ka mid ah aqoonyahanada jarmalka heerota la yidhaahdaa wuxuu tilmaamayaa ina luqati al-aabaa'i wal-ajdaad afka aabbayaasha iyo awowyada laga soo gaadhay waxa uu is yahay kaydka sida dhaqanka iyo taariikhda iyo afkaarta iyo aragtida iyo diinta ummadi ay leedahay kaasaa xambaarsan. idan luqa markaad barata macnaheedu waxa weeyaan waxaad baratay ummadda dhaqankeedii kaljarkeedii siday u fakarayso siday wax u aragto taariikhdeedii. marka meesha lagu kaydiyo ummadaha dhaqankooda iyo afkooda iyo taariikhdooda iyo diimahoodu waa afkooda. ciddii afkiisa weydaa waxay weyday dhaxalkii adoogii oo dhan. waalidka waxa laga dhaxlay iyo dadka kaa tegay waxaad ka dhaxashay materialka maaha, valueska iyo taariikhda iyo dhaqanka iyo waxaasaa ka qiimo badan. waxaasina weelka sida ama meesha uu ku kaydsan yahay waa af. ummaddii afkeeda weydaa bay yidhahdaan waa ummad dhimatay la mid tahay. ummadda afkeeda weydaa waxay la mid tahay ummad dhimatay. sidaa ogeed ayuu aqoonyahan fakta la yidhaahdo oo reer galbeeda wuxuu leeyahay asaaska qowminimada la sheegaya waa dad af qura ku wada hadla oo waxa isku xidhaa uu yahay buu leeyahay afkaasi. afkuna waa raabit matiina. haddaba haddii aynu afka qiimaha u aragno dadaalkiisu wuu badanayaa iyo ilmaha inaynu bari karno. haddaynu se u aragno waxaan qiimo badan lahayn bal aynu kaba door bidno afafka kale agteenna kuma yeelanayo xisaabtan weyn. marka la yidhahdo mother tongue ama afka hooye marka la yidhahdo waxay yidhahdaan waa afka aan iskuul lagu dhigan ee uu ilmuhu guriga kala yimaado. mother tongue-ka waktiga ugu badan ee uu qofku bartaa bay yidhahdaan waa 2 jir ama 3 jir ilaa 5 jir intuu ka gaadhayo ayay luqadaasi qofka u kala cadhaataa. meesha lagu bartaana waa guriga. waa hantida dhaqameed uu qofkani lahaa ama hiddihii uu dadkiisu lahaa meesha uu ku soo baranayo. afku bay yidhahdeen waa waxa lagu gudbiyo aragtiyaha iyo aqoomaha dadkii hore ay lahaayeen ama bulsha ay lahayd. waa meesha dadka waaweyn iyo dadka yaryar ku wada xidhiidhaan. ilmahaga hadday isku af noqon weydaan waxba idinkama dhexeeyaan. waxaad doonaysay uma sheegi kartid, waxaad dareemaysay ma dareensiin kartid. isaguna wuxuu doonaya kuuma caddayn karo, wuxuu dareemayayna kuuma sheegi karo. waxaad tihiin dad jaar ah sida guryaha reeraha jaarka ee wada yaalla ayaa tihiin ee ma tihidin dad isku afa oo dhaqan iyo wax wadaaga. sidee bay u suurtoobaysaa ilmahaad dhashay inaad diintaadii dhaqankaagii hiddahaagii waxaad u sheegto haddii baa kale af tihiin oo 2 luqoo kala gedisan aad ku hadlaysaan? sidee bay u suurtoobaysaa inaad xidhiidhidaan? united nationku 2003 waxay go'aamiyeen in waxyaabaha xeerka ku saabsan hiddaha lama taabtaanka ah. awal waagii hore waxay laga warrami jiray markaa aahaarta bulsha ay leedahay laga warramayo taariikh ay dhiseen, dhismayaasha ay ka tageen, wixii ay ka tageen. waxaasaa la odhan jiray waa aahaartii, waa raadkii ummadeeda hala ilaaliyo. 2003 waxay qaateen go'aan ah inuu afafku yihiin aahaarta ugu waaweyn wax ka mid ah ummadi leedahay. saa daraadeed in la ilaaliyo afafka dunida waxaana lagu tilmaamay dhaxalka ummadi ugu wanaagsan ay haysato inuu ka mid yahay luqada. waayo maadaama valuegii iyo aragtidii iyo waxay ummaddu lahayd oo dhan u sido. weer kooban haddaan ku tilmaamno waxaynu odhan karnaa afku waa sumadda ama baadisocda ama sawraca ummadi leedahay. sumadda ma la yaqaana ama baadisocda ama sawraca waa dhaqankii soomaaliyeed ee baadiye wixii ay xoolaha ku kala calaamadsan jireen. in xooluhu kuwaagii yihiin waanay kuwii dadka kale ahayn sumadda ku taalla ama baadisocda uu leeyahay reer dhanba sumadda wada leh ee gaarka aad sii leediin ayaa ah waxa tilmaamaya inuu hantidaadii gaarka ahayd ay tahay. waxay
yidhaahdaan afku markaa waa waxa tilmaamaya qowmiyadda cidi ay leedahay dadnimada aad leedahay oo dhan waa waxa sida waa waxa taariikhdii sida waladaa sociology ka warrantaa waxay yidhahdaan waa the collective memory of the society bay yidhahdaan bulshadu xasuusteedii guud ay wada lahayd ee collective-ka ahayd luqada sida baa la yidhahdaa مثلا markaynu luqada ka warramayno mahmaahyuhu masalan mahmaah proverbs waa waxyaabaha lagu kaydiya bay dhahdaan dhaqanka ummaddu ay leedahay hal mahmaah oo sentence koobani wuxuu ka tarjumayaa dhacdo ballaadhan oo ka mid a taariikhdii ummaddaasi dhacdo waa dhacday ayaa lagu comment gareeyay erayada yar si ay u noqoto inay la xasuusan karo idan taariikhaha ummadda weliba dadka aan qoraalku ku badnayn taariikhdooda oo dhammi waxay ku jirtaa afkooda ama gabay ha noqoto ama mahma ha noqoto ama suugaanta dhammaanteed ha noqoto waa kaydka ummadda taariikhdeedii sida haddaad weydo markaa waxaad noqonaysaa bay leeyihin qof waayey fingerprintkiisii bini aadamku wuxuu ku kala soocan yahay waa fingerprint qof waliba suulkuu meel saara suulka markaad saarto wuxuu sheegaya inaad adigii tahay ummadda luqadeeda lumaysaa waa fingerprintkeedii baa lumay bay leeyihin waa ummadaan la heli karin waxa dadka kale lagaga sooco united nationka qoladan unesco la yidhaahdaa iyaguna 21 February bishanaynu ku jirno 21keeda ayaa loo calaamadiyey dunidu inay noqoto maalin loo dabaaldego afka hooyo ummad waliba ay afkooda hooyo u dabaaldegi karto daba waxaa la tilmaamayaa inay laga maarmaan tahay bini aadamku inuu luqaadkiisa ilaashado weliba waxay kaloo yidhaahdaan ilmuhu hadduu afkiisa hooyana garanayo af labaadna uu barto culamada qayb baa qabta inay tahay waxyaabaa dakaagiisa kor u qaada intelligenceka ilmaha ama garaadkiisu ka labada luqa ku hadla ka garaad fiican bay leeyihiin ka halka luqa ku hadla marka la eego ilmaha iyo siduu u korayo siduu wax u baranayo reer galbeedku waagii hore bulshada u timaada waxay isku dayi jireen assimilation in lagu sameeyo in la milo waayo nimanka siyaasiyiinta inta badan waxay jecel yihiin bulshada homogeneous group inay noqoto dad nooc qura ah khilaafaadkoodu yariyey diimaha isku hayaan yaryihiin afafkay ku kala hadlayaan ay yaryihiin waxaa fududaanaysa qaabka loo maamulo laakiin educational philosophy culamada ka warramaysa waxay leeyihiin oo iyagu khilaafsan siyaasiyiintu say wax u arkayaan تعدد الثقافات واللغوات luqooyinka tirabadnidooda iyo cultureka tirabadnidiisu wuxuu ka qayb qaataa bay leeyihiin bulshada horumarkeeda marka in la ilaaliya habboon bay hadda leeyihiin bulshadu afafka badan ay leedahay inaanay dhimanin oo tajaarib ay sameeyeen matalan waxay ku tilmaamayaan waddankan Canada gobolkan Quebec la yidhaahdo af Faransiis bay rasmi ugu hadlaan waddankana labada luqaba waa la bartaa ardayda bay yidhaahdeen hal luqo baratay iyo ardada labada luqo baratay intuu mother tongue-giisa la baray marka koowaad kadibna luqo kale la baratay markay sameeyeen daraasa researchkooda wuxuu soo saaray inay tacliim fiican yihiin oo intelligent fiican yihiin kuwii labada luqo lahaa waa haddii bay yidhaahdaan laakiin marka hore luqadiisa hooyo ay si fiican u dhisanto oo iyadu noqoto luqaadka kaletu uga qiyaas qaadanayo ama uu ku dheerarinayo hadday iyadu noqoto waxaan rabaa markaa inaad ku soo koobo afku waa muhim weliba afka hooyo aad buu muhim u yahay innagu soomaalidu afkooda way xaqireen waxaanay u arkeen inuu yahay af aan aqoonahayn laakiin su-aal baan isweydiino af cilmiya miyaa jira iyo af jaahila culamada luqada ka warramta waxay leeyihiin af cilmiyi ma jiro oo la yidhaahdo afkaasina waa cilmi
afkaasina cilmi maaha ee afku bay yidhaahdaan waa agabka cilmigana lagu qoro jahligana lagu qoro. afku waa agab, waa qalab la adeegsado. computerka yaray hor yaalla waa qalab la adeegsado. wax wanaagsanna wuu kaydin karaa, wax xunna wuu kaydin karaa, waanu marnaan karaa. dadkay ku xidhan tahay wuxuu ku kaydsanayo. afku bay leeyihin markaasi cid kasta afkeedu waa iyadu siday wax ugu kaydsato ee af cilmiyi ma jiro gaari. si awgeed baa waxay yidhaahdaan ciddii awoodi weyda inay afkeeda iyadu wax ku kaydsato waxay ku biiraan dadka la gumaysta ee af kale wax loogu kaydiyo. waa nooc gumaysiga ka mida inaad afkaaga waxba ku garan weydo oo uu noqdo markaa caqli kale siduu u fakarayay in wax lagugu qoro, oo adigu aad noqoto markaa inaad marti ku noqoto cid kale afkeed oo adiga kaaga aad ka qaawanaato. ma af yar baa jiriya af badan oo masalan af ingiriisku miyuu ka badan yahay afafa kale? maya. af ingiriisku waa 800 root bay yidhahdaan gebigiiba. luqadka ugu waaweyn dunida ugu badan masalan luqada carbeed baa ka mid ah. almost ereyada luqada carbeed waxay yidhahdaan 12 milyan bay ka badantay. haddana maanta af ingiriisigaa la tilmaamaya inuu yahay maxay luqada caalamiga ah. dadkii lahaabaa ka dhigay. af inuu ballaadho maxaa keenay naaxiya? waxa naaxiya aqoonta lagu qoro. saa daraadeed afafka waxa inay ballaadhaan keena waa terminology-ga, waa eray bixinta. oo eray afka macno qura ku lahaa markuu linguistically la joogay ayaa markii aqoonta lagu qoray macnayaal badan oo kale loo sameeyey. saa daraadeed eraygii macnaha qura lahaa ayaa 10 macne laga dhaliyey oo la yidhahdaa in political science markuu joogo ereyga saasaa loo isticmaalaa, sociology-ga saan baa loogu isticmaalaa, physics-ka saan baa loo isticmaalaa. idan waa one word laakiin waa la naaxiyey. masalan af soomaaliga markaan ka warramo waxaan idhahnaa 3 qolaa naaxisay. qoladii koowaad ee af soomaaliga naaxisay waxay ahaayeen culammadii muslimiinta ee soomaaliyeed ee isku dayay diinta ama af carabiga wixii ku qornaay oo dhan inay ku tarjami karaan af soomaali ku sharxi karaan. oo dadka soomaaliyeed duu qur-aan la fasirayayey, duu fiqi la fasirayayey, duu xadiis la fasirayayey, bale ashcaartii carbeed iyo gabayadii carbeed haddii la fasirayo in lagu fasiro luqad soomaaliyeed. waxay ahaayeen baa la yidhahdaa dadka koowaad ee u sameeyey luqada soomaaliyeed terminology, eray bixin ballaadhan oo af ka weyn dhinac dhigay. dadka labaad aan odhan karo hore ee af soomaaliga ballaadhiyey waxay ahaayeen dadkii warbaahinta ka shaqayn jiray. wariyaashii hore ee soomaaliyeed ama b b c ama radio muqdisho ama radio hargeysa. warbaahintaasina waxay tarjameen luqadii warbaahinta oo aada u ballaadhan oo aan ku jirin marka hore af soomaaliga. marka hadii af soomaaliga ku jirin waa maxay? erayadu waa soomaali laakiin macnaha cusub baa loo yeelay. masalan erayaan idiin tilmaamay violence, alcunf, waxay ku tarjumeen maxay? gacanka hadal. gacan iyo hadal waa eray soomaaliyeed oo la yaqaano, laakiin waxaa laga dhigay qofka violentka ama violenceka samaynaya ama cunfiga la imanaya inuu halkuu afka ka hadli lahaa meeshuu ka hadlaya ay tahay maxay? inuu gacan ka hadlay. gacan iyo hadal waa 2 erayo af soomaaliya laakiin waxaa loo sameeyey macno cusub oo uu qofka soomaaliyeed markuu maqlo uu fahmi karo. tusaale mawjaadkan waa radio hargeysa kala hadlaya bay leeyihiin hirarka gaarka hadal. hir waa luqad soomaaliyeed oo rasmi ah laakiin terminology ayaa loo bedelay cilmiya. masalan satellite bay dunidu samaysatay, hore berigii hore uma jirin, dabeetana mar baa la sameeyey. iyagu satellite baa u bixiya. nimankii soomaaliyeed ee warbaahinta waxay u bixiyeen dayax gacmeed. dayax gacmeed baa la galay bay leeyihin. idan dayax iyo gacan horeynuu naqaanay laakiin markii laysku rakibay waxa loo sameeyey maxay? macno cusub baa loo sameeyey. masalan apartheid baa soo baxay, midabta koor baa loo bixiyey. waa 2 erayo
soomaaliyeed oo laysku rakibay oo macno cusub sameeyey